jireen howlaha ilaalinta amniga qaybo kamid ah wadada Makka al-Mukarrama iyo ciidan booliis ah isna oo laakiin kamid ah ilaalada gaarka ee wasiirka wasaaradda beeraha Maxamed Ibrahim Xaabsade ayaa sida la sheegay waxa uu ka bilowday kadib markii laba kamid ah ciidanka ilaalada wasiirka oo aan xirnayn dareeska lagu yaqaan ciidamadu ay hub la soo dhex maraan wadada dabadeedna ciidamadii ammaanku ay ka qaadeen qoriyihii ay siteen labadaasi askari taasoo keentay inay dib inta ugu noqdaan xaruntoodii ciidamada hubka laga qaatay ay weerar ay ku doonayaan inay ku soo furtaan qoryaha hore looga qaatay ay ku soo qaadaan halka ay joogeen ciidamada booliiska ahaa ee iyagu la sheegay inay sugayeen ammaanka magaalada halkaas oo ahayd inta u dhaxaysa kilometer 4 ilaa iyo xaruntii CID-da dabadeed tacshirad la isku wadaarsaday aagaasi ay keentay dhimashada ilaa 7 askari oo u badnaa labada dhan ee ciidamada ka wada tirsan iyo qof dumar ahayd oo iyadoo la sheegay inay ku ganacsanaysay meel aan ka fogeyn halka la isku farasaaray sidoo kale waxa iyana jirtay dhaawac soo gaaray ciidanka dagaalamayay iyo dad rayid ah oo aaga ka dhawaa iska horimaadkan dhaliyay khasaaraha dhimashada ah ee aadka u sareeya ayaa soconayay in muddo ah oo ka badnayn ilaa 15 daqiiqo oo kaliya kaasoo kolkii dambana si iskiisa uu istaagay markii uu istaagay kadibna waxaanu la kulanay wasiirka wasaaradda beeraha Maxamed Ibrahim Xaabsade kaasoo ay ciidamo ka tirsan gurigiisu ay ku lug lahaayeen dagaalka waxaanu inoo sheegay wasiirku inay ahayd arrintani mid filan ah oo isagu uu haystaba inay ahayd wax qornaa oo aan habeeraatee la baajin karin waxaanu intaasi ku sii daray inay jirtay amar dawladda ka yimid oo dhigayay inaan hub lagu dhex sidan karin magaalada gudaheeda isagoo u tacsiyadeeyay intii ku dhimatay dhacdadan sheegayna inaanay jirin wax cuqdada oo ay keenayso ama reebayso arrintan iyada ah ciidanka nabadgelyada oo bariyahanba wadooyinka qoryaha ka ururinayay oo la isku oo go'aanka dawladda ahaa ayaa laba wiilasha aniga ilaalay ila joogay ahaa oo ayaga laftooda boolis ahaa laga qaaday qoryo qoryahana markii la qaaday bariyahanba wasiire iyo libaano iyo kuwa kaleeto ciidan aba waa laga qaaday amarkaaba saas ahaa wixii magaalada qori la dhexmaraa in laga qaado wadooyinka ayaaba ahayd amnigaaba lagu sugayay idaacadahana waa tii laga baahiyey marka wiilasha markii labada qori laga qaaday ayagoon waxba noo sheegin annagii iyo odayaasha ahaa meesha joogay libaano badan baan ku joognay oo waa iska jiibnay maadaama ay ramadaan ahayd waa iska nasanaynay kadib waa ka daba tageen qoriyay qaateen waa ka daba tageen meesha CID horteeda oo lagu sheegay number 4 ay raggii nabadgelyada oo meesha jooga ka daba tageen aniga idda wax bilowday ma ogi ayaga markaas waxay sheegeen baa leeyahay waa ka daba tagaynaa qoryihii baan weydiisanaynaa inaan inaga ciidan nahay marka ma isku qaldameen ma markii qoryihii waayeen baa habad isku bilaabay aniga ma sheegi karo ilaahay amarkiisa dhacay kullay halkii habada ka dhacday waa la ishabadeeyay rag badan baa ku dhintay sida taliyaha booliska ii sheegay Cabdiqayb Diid raggii ilaalada nabadgelyada ahaa oo wadooyinka ilaalinayay laftooda rag badan baa ka dhintay buriya ilaa 4 kuwii halkan ka baxayna nin sarkaal ahoo kabtan ahoo Allah ya raxma oo wiilasha inuu soo celiyo oo wasiirka doonayay soo noqda qoryaha si wardahaya habadii meesha ka dhacday ninkaasna waa ku dhintay kullay ku aniga la joogay mid kale toona waa dhintay labadaba boolis bay ahaayeen mid kale boolisan waa dhaawamay aniga intaasan ogahay kadibna adiga waxaan isla hadalnay hadda Maxamed Jamaale Goobale iyo Cabdiqayb Diid iyo raggaasoo dhan waa wada hadalnay ilaahay ha naxariiso laakiin wax ka talagal marnaba ama dagaal ama abaabul ama saxanaaqa ma jirin fudeedkaas yar baa dhacay Cabdinuur Mudi al-Cadaala telefishinka Universal Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Cismaan Dhagax Tuur ayaa shir jaraa'id oo maanta qabtay waxa uu kaga hadlay
waxyaabaha ay doonayaan maamulkiisu inay wax kaga qabtaan mushkiladaha ka haloosan magaalada muqdisho xilli magaalada muqdisho ay weli ka soconayaan dagaalo u dhaxeeya dawladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya iyo kooxaha islaamiyiinta ee sida weyn uga soo horjeeda mudane Dhagaxtuur waxa uu ka hadlay dhismaha urur dhalinyaro oo uu leeyahay gobolka Banaadir haddaba wariyaheena magaalada muqdisho Cawil Abuukar ayaa warbixin uu ku eegayo arrinkan muqdisho inooga soo diray gudoomiyaha gobolka Banaadir Cusmaan Cali Dhagaxtuur oo maanta shir jiraayad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in maamulkiisu ku howlan yahay dhisida ururkii dhalinyarada ee gobolkani Banaadir isagoo soo bandhigay charterka ay dhalinyaradani ku howlgali doonaan gudoomiyaha ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay ka koobnaan doonaan dhammaan degmooyinka gobolkani Banaadir iyadoo degmo kasta laga soo xulayo 2 xubnood waxaan ku jirnay in muddo ah sidii aan ku dhisi lahayn ama u diyaari lahayn ururkii dhalinyarada gobolka Banaadir ururkan yani ma dhisnay hadda ayaan rabnaa inaan dhisno qorshihiisa iyo programkiisana in ku dhow 3 bilood ayaa laga shaqeynayay hadda wuxuu marayaa gebagebo waxaan rabnaa marka inaan bulshada u bandhigno meesha halka ay wax marayaan waxay ka koobnaan doonaan 32 xubnood ayay ka koobnaan doonaan degmadiiba 2 xubnood ayaa ka imaanaysa waxayna yeelan doonaan hal gudoomiye iyo 2 ku-xigeen iyo xogay oo maamuli doonto xubnahaas charterkooda ayaan dhamaystirnay oo ay ku shaqeynayeen oo maamulka ay ku shaqeyn doonaan charterkii oo lagu dhaqaayay ururka dhalinyarada waa kana oo ay lagu maamulayay waxaan rabnaa marka inaad saas ogaatiin daraftiga charterkoodii waaye oo ay maaragtay inay ku shaqeeyaan dhalinyaradaas oo ay noqon doonaan doorashadii gobolka ayay ka dhici doontaa waa doorasho magacaabis ma noqonayo saad ogtihiinba maamulka gobolka doorasho ayuu ku yimiday hay-adihiisana doorashay ku imaanayaan shacabkay ka imaanayaan cid la magacaabayo oo damba gobolka Banaadir kama dhacayso sidaas daraadeeda charterkii waa dhamaynay xeer hoosaadka ay ku shaqeyn doonaan iyaga sameynaya charterka ayuuna waafaqi doonaa charterkii waa dhamaynay warqadihii doorashada oo lagu tartami doono kuwaanay noqon doonaan oo lagu tartami doono doorashada ka dhici doonto cod qarsoodi ayay noqon doontaa waxaan rabnaa marka inaan idiin sheegno dadka doonaya inay is sharaxaan inay keensadaan maamulka gobolka hortiisa CV-gooda Soomaalidana waa u furan yahay dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir inay maaragtay ay soo xaadiraan oo ay soo gudbiyaan liisaskooda cidda danaynaysa inay u tartanto gudoomiyaha golaha dhalinyarada gobolka Banaadir hadalkan ka soo baxay gudoomiyaha gobolkani Banaadir Cusmaan Cali Dhagaxtuur ayaa ah mid imanaya xilli dhalinyaradii gobolkani Banaadir ku dhaqneed ay intooda badan yihiin kuwa ka barakacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Cawil Abuukar Maxamed Universal TV Muqdisho